martabada banaan mugdiga ku habsaday xumaa mugdiga ku habsaday xumaa mugdiga ku habsaday xumaa maatidan la kumaada iyo maxaasta iyo hooyadii maxay macaluusha iyo madfuucu kala qaybsadeen hase ahaatee kulankan maanta isugu nimid wuxuu ku saabsanaa in saxafiyiinta qurba joogga ah ee ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ay isugu yeereen ururka sharciga ah ee saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee iyagu matala inta badan rabitaanka guud ee saxafiyiinta Soomaaliyeed inta ku nool inta u dhaxaysa Badhaadhe iyo Boorame Berbera iyo Buuraxaawo Balxaawo Kismaayo iyo Guntuwaarey intaas oo dhan kulli saxafiyiinta hadda dantooda ururka ay ka dhaxarkeen ayaa isugu kaayeeray guudmar kooban haddaan ku sameeyo ururka National Union of Somali Journalists ama ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed saaka warqabteen buu waxa uu la burburay qarankii ummadda Soomaaliyeed isku xirnaantii saxafiyiinta iyo warbaahintiina kulli dawladii bay raacday 2002 guddi saxafiyiin ah oo wariyaal ay isugu yimid magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxayna hagaajiyeen ururka Nosage markiisii ugu horeysay كل إسات كور قبتان لبضة كوني لبضة سمايسين كي أورو كاسي كدب لبضة كوني أفرتي أورو كموسى هاي أورو مثلا دنت جهود صحفيين الصوماليين مسوا بنتي وأمسنتي هنا محاد عين أن أرنت وحي وأكيد إنه الشخص جايب كوريتي دنتي سنة وقوته ربيتان كي صحفيين الصوماليين أنت كونوا الجودة هذلك أنت صابر بحضي دي بدأ سوى ديبة وربيتان وهذا شخص ومارك تجايب كوريته وهذا خصوصا ururka IFJ la yiraahdo ururka xiriirka caalamiga ee wariyaasha caalamka oo isagu aan dhihi karno waa urur ka daaweyn qaramada midoobay iyo midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta kulli deesaar ka warqabtaan IFJ 1926 baa markii ugu horeysay lagu aasaasay magaalada Paris inkastoo laba mar dambe dib laga hagaajiyay in ururkii sidaa ahaa oo qaramada midoobay ka daaweynaa oo la tilmaamo ilaa 120 dawladood inay xubno ka yihiin isla markaana ilaa 600,000 oo wakiilo saxafiyiina dalalka caalamka ay ka joogaan in isagoona saxafiyiintii Soomaaliyeed iyo xukuumaddii iyo dawladdii Soomaaliya iyo rabitaankii saxafiyiinta Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ku noolaa aysan dhageysan ee General Secretary-ga xogeeyay hore Adam White loo oran jiray uu xoojiyay Umar Faaruq Cusmaan oo isagu sheegtay inuu xogeeyaha guud u yahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed taasoo inta badan saxafiyiinta Soomaaliyeed aysan raali ka ahayn كل يوم كانوا أرماس وكسب سيا والدين الرعي ووري وعن جعلان لها ما دام جدي ورفاقين تقدميه ودي عاود أحمد عشرة ولا الجوجو إن الوري بعاود أحمد عشرة ميكروفون كسر دويه وعن جعلان لها إلا سور دويه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنياش برلمان كسعودة أخيار ضدك الدولة TFG مدحدة هذا ويكمل دهين دبلوماسيين سفارتها جوجا يو سفير كوريجا أو صوماليا سد يو بهوين تا صحافة أمة الصوماليين وما أنت هالك يسقطني يو صحافة أجنبية iyo ajnabiga kaleeto oo soo daneeyay arinta tan waxaan ku salaamayaa salaanta islaanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka ugu horeeya waxaanu nahay dad muslimiina ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu tawfiiqdeena waafajiyo munaasabada tan aan isugu nimo oo ah inaan xusno
saxaafadda Soomaaliyeed dhibaataday soo martay dadkii u qurbaxay iyagoo u taagan qaranka Soomaaliyeed inay fuliyaan hawlahooda qaarkood loo xirxiray qaarkood loo qarxiyay qaarkood maxay ahayd dhibaatooyin badan u galay waxaan jecelnahay inaynu tacsiyad u dirno oo dadkaas waxayna ka mudan yihiin ilaahay aakhirona inuu jannadii geeyo ifkana dadkii ay ka tageen iyo qaraabihiina uu sabir iyo iimaan ka siiyo iyagana aynu xusuusnaano hawsha ay galeen inay tahay hawl qaran oo meel u taalla oo loo baahan yahay inaynu gidigan garanno waxaan qodobka kale ku xijinayaa waxaa weeye intaanan u gelin saxaafadda hawsheeda iyo waxeeda waxaan jeclahay inaan dhawaaq aynu u jeedino nimanka xidhan oo hadda Puntland lagu xidhay oo Mahdi Abdi Ali iyo Somali Journal Universal waxaan leenahay oo ka codsanaynaa madaxweynaha Puntland Farole iyo wasiirka informationka iyo wasiirka cadaaladda sharciga Puntland u yaalo saxaafadda waa naqaana annaga dhigno oo qoraalkeedii markii la sameeyay qof la iskama qabto hadaanu dambi kula jirin faragaransa wax la yiraahdo hadaanu kula jirin la iskama qabto waxaan ka codsanaynaa inay sharafkoodana u fiican tahay Soomaali qarannimadeena u fiican tahay in shuruucda la dhowro oo la kala dambeeyo waxaan jeclaan lahaa marka dadkeena halka joognaa inaynu gudigan u jeedino baaq sidii loo dhowri lahaa saxaafadda oo saxaafaddu waxa weeye awoodda afraad oo qaranka hogaamiya awoodda afraad oo qaranka hogaamiya way saxaafaddu sida darteed waxa loo baahan yahay in la dhowro doorka ay leeyihiin kaalinta ay leeyihiin kaalinta ay leeyihiin oo cadaynayo dastuurkeena sharciga axdiga ku meel gaarka qodobkiisa 20aad oo cadaynayo in la dhowro sharcigaas usaga waxa dhacday intii aanu joognay hadda xamar in shabeelle laba joor la farageliyay reedo kulin wax kastaba oo ku saabsan arrimahaas in la dhowro sharciga maxay haytoy saxaafadda kaas oo ku salaysan madax banaanida saxaafadeed iyo xurriyadda qowlka oo la dhowro saxaafadda sida darteed sharciga in la dhowro ayaynu gidigan u wada baahannahay qodobka labaad oo aan jeclahay inaan meesha isla ka iraado waxa weeye waxaan jeclahay horta waa kala filqsantihiin annaga haddaan nahay baarlamanka iyo xukuumaddu waxaanu ictiraafsannahay dadka ka sajilan xamar oo wasaaradda hoos yima wasaaradda ay ka sajilan informationka wasaaradda gudaha ka sajilan sababtoo markaad ka shaqaynaysaan xamar iyo wadanka gudihiisa waa in la idin siiyaa aqoonsiga saansu waa inay haysaa wasaaradda informationku waa inay soo gudbisaa nabad sugidda u gudbisaa wasaaradda dakhliga si dhulka aad galaysaan la idinku ogolaado oo aqoonsiga aad u heshaanin isla markaa waa inaad urur leedihiin marka wax dhacaanin idina dhabar idin dawladana la xisaabtami kara dawladana idinka dhicin kara idinkana aqoontiina iyo horumarkiina iyo xuquuq waxaad leedihiin idin doodi kara inaad leedihiin baa loo baahan yahay ururka dhisan oo saa loo sameeyay wax loo baahan yahay usna inuu hirgeliyo shuruucda loo sameeyay saxaafadda ama ha noqoto jaraa'idka ama ha noqoto TV-yaasha ama ha noqoto electronic kay waxay yiraahdaan saxaafadeed oo maxay ay tahay websites-ka iyo maxay ahayto Facebook iyo waxaas waa electronic journalism way kuwaas ruuxadooda sidii loo dhowri lahaa in iyadana la dhowra ayaa loo baahan yahay sida darteed dalkeenu waa burburay inaad mas'uuliyad gaaraysa saartaan baa la rabaa dalkeenu intuu meel tagay buu meel ka soo noqday meeshuu ka soo noqday inaan ku celino way meeshuu ka soo noqday inaan ku celino way marka sida darteed waxa loo baahan yahay in aad garataan sida baarlamaanka u shaqeeyo sida xukuumadda u shaqeyso sida judiciary u shaqeeyo sharcigu hawsha gaarka aad idinku leedihiin sida u fulayso sida darteed waxaanu dawladda ku baraarujinaynaa inay dawladdu idin gacan qabato oo la sameeyo maxay ahaytoy saxaafadda heerarkeeda kala duwan ama mid jaamacadeed ha noqdo ama mid khibrad lagu qaato ha noqdo in la tixgeliyo aqoonta iyo sarawqaadka saxaafadda Soomaalida in la soo celiyo ragii aqoonta lahaa oo waaweynaa oo saxaafadda yaqiinay in dalka lagu soo celiyo oo idin barbaariyaan oo idin gacan qabtaan
waxaan hadalkayga ku soo koobayaa Soomaaliya waxay soo martay dagaal sokay waxaan idinka codsanayaa inay idin kor uga kacdaan fikirka qabiiliga kor uga kacdaan fikirka jilib-jilibka reerka oo arrintiinu ku dhisnaato sharaf iyo qaran Soomaaliyeed soo noqon lahaa ku dhisnaato aqoon kororsi joogto ah ku dhisnaato garasho aad garataaniin marxaladda Soomaaliyeed ku jirto inay tahay dawlad burburtay oo cadow loo yahay oo NGO laga dhigay oo nin kasta meeshuu rabo ka soo gaaro cad ka goosanayo in aan nin kasta ha noqdee leadership fiican anagu aan ku jirnay leadership fiican la rabay inaan waqtiga kan joogin aynu u wada baahanahay inaynu abuurno leadershipkaas leadership Soomaaliya ka saari kara maanta mashkiladda haysata oo mashkilad culus ah inaynu isu dul qaadanayno waa loo baahan yahay marka hadalkaygu waxaan ku soo gabagabeynaa waa ku dheeraaday waxaan idinka codsanayaa 3 qodob waa inaydan adkaysaaniin dadnimadiina iyo valueska iyo ethicska oo leedahay saxaafaddu mid ay u tahay mid qoraal iyo mid muuqaal mid ay tahay inaad adkaysaaniin inaad wada jirtaaniin oo ka shaqaysaaniin sida aad u wada jiri lahaydeen inaad garataaniin wadankiinu inuu dayacan yahay oo aad wax kasta ku dul qaadataaniin lacag la'aanta dhibaatada maxay tooy idinkoo leedan cabsiyo leedin caga jugleeyo waxa soo dhan aad ku ilowdaaniin qaran in la gaaro waxaan eebbe idinka rajaynayaa dariiqsan waxaan eebbe idinka rajaynayaa inaad noqotaaniin barbaartii Soomaaliya ku badbaadisay aqligooda iyo qalinkooda iyo maskaxdooda iyo aragtidooda dheer oo turta joogan oo dheer la marayo badbaadiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته media expert oo jaamacado badan adduunka ka soo baxay analyze badan saxaafadda ku sameeyay taa wixii tala iyo go'aamina siiyay waa raaci doonaa waxaan jeclahay inaan hal eray aan ka dhaho isla markaasna aan idin soo gudbiyo salaan iyo maartay hadal aan idinka sido madaxda ururka oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho wadahantii inaga ururka safiinta qaranka Soomaaliya nusaj waxaanu ka shaqeynaa 18 gobol ee Soomaaliya fadhigeena waa magaalada Muqdisho headquarterkeena xafiiskeena kale ku yaala waxaan leenahay ama hoos yimaada ilaa iyo 300 oo wariye oo gudaha Soomaaliya ka hoos gala ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee warbaahinta dalka waxa sharaf noo ah oo mudnaan gaar ah maanta noo ah in aanu halkan Nairobi inagoo ku bajooga dadkan ka soo qaxnay aanu si wada jira u xuseyno maalinta World Impunity Day ama maalinta la highlight gareeyo ama la iftiimiyo dhibaatooyinka ama tacadiyada ama ciqaabta ama juurafalka qofba si uu yaqaano ee lagu hayo warbaahinta Soomaaliya warbaahinta adduunka ka gaar ahaan inaga waxaan qosay Soomaaliya waxaan ognahay 5 sano ee soo dhaafay in dalkeena lagu dilay ilaa iyo tan 2005 ilaa iyo 25 wariye waxaan ognahay in sanadkan oo kaliya lagu dilay Soomaaliya 2 wariye laba kala dhaawacay aan cadaalad la keenin maartay dadkii dhibaatadaas geystay aad baan uga xunahay maalintan oo ah World Impunity Day oo loogu talagalay dadka juurafalka ku haya ama tacadiyada ama ciqaabta ku haya warbaahinta in cadaaladda la marsiiyo waxa aan halkan mar kale iyo mar saddexaad aan ka xunahay wariyaasha aan isku shaqada nahay ee aan u doodno Soomaaliya oo dhan ama caalamka ka howlgala ee afka Soomaaliga wax ku jeediya ee dhibaatada loogu geysto Soomaaliya ama meel ka baxsan waxa ugu dambeeyay dhacdooyin dalka ka dhacay waxaan ognahay in maamulada dalka inta badan ay ku lug lahaayeen qaybo kala duwan iyagoo ah dhacdooyin caynkaas aad baan uga xunahay arintaas waana gacanna waa ka geysanay madaxweynayaasha maamulada ka jirana waraaqan u qornaa waan la fariisanaa waxa ugu dambeysay madaxweynaha maamulka ama dawladda Puntland Professor Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo aan si xishmad leh uga codsanay inuu xayiraadda ka qaado labada telefishin ee Soomaalidu ay daawato Somali Channel oo ah telefishin rumaantii bog taariikh kaga jira media Soomaalida oo aad ogtiin in uu wariyaal calaad degmo gobol kasta uu ku leeyahay degmo kasta oo Soomaaliya ka mid ah uu wariyo u joogo oo dhibaatadii baahida warbaahinta Soomaaliya ka qabtay ay highlight gareeyay oo aanu
madaxweyne Dr. Professor Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole aanu ka codsanay inuu sii daayo telefishinadaas oo baahidii Soomaalida daboolay oo wax weyn qabtay dhab ahaantii arintaas gacanaan ka geysanaa waxaanu ka codsanaynaa marka madaxda Soomaalida cid kasta oo mas'uul ah oo Soomaaliya ama dul madax ka ah in ay naga daayaan ama ay dhibaatada ka daayaan ama caburinta ah warbaahinta waxaan ognahay in dalkeena sanado ka hor dhibaatada ka dhacda ama shuban magaalo ka dilaaca ay u baabi'i jireen boqolaal qof kadibna hal media center laga dhageysan jiray oo idaacadda xitaa mararka qaar media centerkaas uusan gaari karin goobtii dhibaatadaas ay ka jirtay maantana waxaan ognahay munaasabadan oo kale oo aanu fadhino oo aanu ka hadleyno dhibaatada iyo maaragtay suxufiyiinta dhibaatada lagula kaco in daqiiqada gudahood adduunka oo dhan laga daawanayo